بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نور دقل مانتا إيقو الرئيس. meel kasta oo qof Soomaali ah oo istaagay oo shabaab yac iska yirina anigu inaan tagaan diyaar ah meesha doona ku yaal Jubbaland ha jiro ama Puntland ha jiro ama inta u dhaxaysa ku jire dawlad goboleedyada iyo deegaanada dhan meel walba maalin aan tagayaa dadka iska xoreeyay shabaab inaan dhaho wadadii saxdeeda qaadeen inta dhimanay dhameystir insha Allah maalin dhaweyto magaalada Wisil waxaan ka sheegay markaas waxa ii dhawaa geedkan geedjiniga la yiraahdo geedjiniga sida u faafo aragteen ridi cunta muxuu ahaay mirihiisa haday qaaday meelaha ku digoto waa meesha ka soo baxa shabaab waa sidaas oo kale qof dadkan ka tirsan haduu wili shabaab ku dambeeyo waa soo cifaa waa imaana shabaab oo socdo noqaa wuxuu waa fikir qofku inuu fikirka ka tanaasulo iyo in loo dilo walax ka dhaxeeya malaha haduu ka tanaasulo wiil Soomaaliyeed oo ahal oo qaraabo ah waay haduu ka tanaasuli waayo waa saan hor u sheegay waa cadow Soomaaliyada maanta joogta ee Soomaalida ah ee afka Soomaaliga ku hashay dirka Soomaaliga leh hal cadow ay leeyihiin meel kastoo ay joogan cadowgaasuna waa shabaab reer hebelan cadow noo ahayn reer hebel kalaan cadow noo ahayn dawlad hebel iyo maxaan ku raad dad kale oo dawlado kale joogan cadow noo ahayn maanta Soomaaliyada joogta shabaab cadow u ah waana qirteen waa sheegteen wixii dhacay oo dhan khayr Allah si adeerkan hadda maqlaaya dhahayo waxa oon soo maqalna waxa ugu xumaay naagtaada soo baxday kan wixii diintu nafartay in loo dhinto sawma cirdigi wax sharafti karaamadii in loo dhinto diintu ay nafartay soo kamid ma nimankaas dadnimo male oo diin male oo ehel male oo qaraabo male waa bahaliyay oo dadka diiranayo diirata oo wixii ku reeba aqligana ku reebi maayaan xoolana ku reebi maayaan marka inaad inta adkaysan weydeen aad dibkoodii fahamteen aad u qaadateen qalabkiina oo aad iska raacdayseen karaamo iyo cizi horta maanta idinku horeysa deeliira meeshii aad mujtamaca Soomaalida iyo dadka deegaanka iyo qolada iyo qaraabada aad ka tirsantiin uga jiri jirteen maanta aad ku soo noqoteen horta oo joogtaan weligiina dad macna leh oo dadka muxuu dhaxdiisana taariikh ku leh oo waliba colaad iyo xumaan haday timaaday wax la iska dhiciyo waliba taariikh gaar ah loo maxaan ku raadayay la garanayo oo murti badani hore loogu sheegay ayaa tihiin nimanku waxay galaan male waxay gudaan male waa baahalo yar yar oo dadka beenbeen iyo arxan darrada inta dadka tuseenay ku haystaan xoog iyo xoolo iyo aqli ku haystaan male waa ka tiro badanahay waa ka xoog badanahay waa ka xoolo badanahay waana ka dhinac walbaan uga badanahay maanta sidaad u sheegtaan waa dib dib loo arkmaa waxaan rabaa wixii wanaagsan in la isaga daydaa fiican wixii xunna aan la isaga dayan reerka walaalaha ah ee maxamed muuse la yiraahay meeshan degan ee ka dheereen sida ay yeeleen la idinka rabaa shabaab ehel male qaraabo male abti male adeer male eed male habar yar wax uu leeyahay male kuwa hadda la tilmaamayo zakada qaadi jiro qaarna saan dhahayo hadda uu sheekhu sheegay iyo kuwa abwaanku tilmaamay iyo kuwa aad wada ogtiin oo la soo joogteen waa wiilashiina waa taqaaniin qaarkood ehel idimaha ogaada intay aaminsan yihiin fa shabaabnimada intay aaminsan yihiin